السلام عليكم أخيارتي waxaan leenahay waa janalka Sule Mutari akhyaaray waxaan leenahay Soomaali hadii aan nahay waxyaalaha ugu badan ee Soomaali dibaya ee Soomaali ka dhiman ee Soomaali dhexdooda ku jira waa sixir Soomaali waa la isku sixiray waxaan leenahay dhalinyaradan iska hurda oo iska qaylaysa oo intay micnaha marna iska jiibsadaan marna iska soo kacaya oo waxba aan haynin oo la waalay oo dhinacan oday waalan oo siyaasad ka waalayo dhinacan oday waalan oo sheekh wax rusheynaya ka waalayo waxa weeyaan noo haray wardalka hadaa ka soo cararno dalka Ethiopian baan siinaa Ethiopian baan ugu soo radnaa war maanta wixii ka dambeeya barnaamijyo waxaan soo saarayaa ku saabsan xontiga ku saabsan refujiga ku saabsan dadkan nolosha ay ku nool yihiin war dalkiina ka soo cararaysaan Afrikadan u soo socotiin East Africa ama West Africa ama wax rabta ha ahaato wadamada u soo ordaysiin waxyaalo ma leh wadamada Yurub iyo Turki Jarmal Faransiiska oo ordaysiin waxyaalo ma leh badiya ku baabaadeen Soomaali hadaa tihiin dhalinyaro waxa la idinka rabaa dalkan odayaashiina iska dhicsiin ina odayaasha iska qabatiin waxa la idinka rabaa in aad dalkan maanta dadka u haray waa idinka odayaasha cimrigooda waa dhamaaday farmaajo cimrigiisa waa dhamaaday ninka ra'iisul wasaaraha oo cimrigiisa waa dhamaaday ragga u haray oo annaga dalkan dhalinyaro iska leh waxa maanta ka dambeeya si hamiin uusan u galinba inaad tahriibtiin oo hooyo aysan u nixin aabo u nixin si in dagaal u galin si in argixis u raacin si in ciidamadiina iyo ciidamo argixisa ay balaayo iyo jamaacadina u raacin oo dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina iyo dalkiina ma anfacdin waxa uu teeda kale cajin odayaashan boorashka walaaqaya oo ila meereysada ah oo filmaantooda odayaashan waa in la iska qabtaa teeda kale hadda wixii ka dambeeyana si waxaan hadda ogahay oo aan dareemayaa in ay jiraan dad saaid ugu fikirsan sidii ay ku imaan lahaayeen East Africa qoxonti ay ku gal lahaayeen war dadka u jeedin oo Yurub ka soo hadlaaya oo qoxontiyaasha ka dhoofay waa dad 20 sano joogay waa dad 30 sano joogay waa dad rafaad badan iyo balaayo badan maray marka waxa weeye saamoodaysa xaaladda maahan maanta wixii ka dambeeyay musalsal si taxana ah u soconaya oo ka hadlaya nolosha refujiga iyo waxay ku nool yihiin insha Allah Ilaahay idinkiis ayaa idin soo gudbinaynaa waxaan idin tusaynaa in ay qoxoonti dambe in ku soo ordin oo qoxoonti aan nacdin oo nolosha oo dalkiina inaa ku laabatiin war qoxoontiyaasha dadka ku nool waxay ku dhacaystaan in Ilaahay dalkooda nabad uga dhigo laakiin Soomaali waxay ku dhacaysataa in Ilaahay process Canada iyo Mareykan asiiyo laakiin Ilaahay idima siiyo ninkii maskaxdiisa galiya process Canada iyo Mareykan Ilaahay hay siiyo oo Soomaaliya aad waaya oo maskaxdiisa galin waaya Ilaahay oo dalkayga Soomaaliya nabad iga dhig Ilaahay waxa ugu bariyay cadaabta Allah ku fogeeyo jahannama Allah ku fogeeyo odayaashan waalay oo jagadiisa Soomaaliya kursiga iska haystana cadaabta Allah ku fogeeyo odayaashan oo wadankii maamulaya oo wadankii dhibay cadaabta Allah ku fogeeyo waxa weeye Ilaahay idinkiisa rasuulku fadligiisa dadka dulminaya Allah naga qabto war waxa lagu leeyahay Soomaaliya maanta waxay maraysaa khaniisiin heer waxa la gaaray baarlamaanka khaniisiin la soo istaago heer waxa la gaaray dhalinyaro macnaha si intii la tahriibiyo ciyaalkii in la duro naas laga soo saaro muski laga gooyo oo la baabiyay marka waxa weeye dhalinyarada Soomaaliyeed wacyi gelintooda iyo qoxonti inuu faa'iido lahayn ayaan idin soo sheegaynaa wabillahi tawfiiq waxa weeye subscribe like share comment inta wayna ka soo dhiitan akhyarta waa Sule waa janalka Sule Mutari oday oo dhan filinkiisa waa gabana